umad ama horumar korto umad may ku horumar kortay markii nabadgelyo jirtay meel nabadgelyo jirna macna horumar may deero kulankan oo ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah aqoonyahanada waxgaradka dhalinyarada iyo haweenka ka soo jeeda gobolada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa looga hadlay wax qabad la'aan ay ku tilmaameen maamulka Koonfur Galbeed muddadii uu jiray barnaamijkaas oo geeka muhiimadiisa inta lanku kooyay inta lagu hadalo wal qabad la'aanta ku jirta maamulka Koonfur Galbeed oo 3 sano hadan dhamaatay oo madaxweynuhu ay mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan geega dadka kiigan iska dhaaf horumar in iyo deeran waliyo ama mahaysadan baahiyaan dhimadooyan maamulka geega ka jiro haddii maamulka usan ka dhisanayn aqoon ka dhisanayn oo tayo aan lahayn umad meel madeersiyo dhibaatadan kuwiin geega Soomaaliya ka jirta gaar ahaan gobolka ka jirta meeta dadka lindhiibi mas'uuliyadda haya oo gabi runtii oo aqoonin lahayn aqoonta sheedi kaliya lagu hormaraa madaxda maanta Koonfur Galbeed gaar ahaan madaxweynaha ani ma qabo horta aqoon dari aqoon la'aanba qofka dudaacad yahay wax waa qaban karaa ani waxa meesha maqana qaba in dadka iyo dalkaba aan dan laga lahayn Shariif Xasan oo baydhoow jooga 2 toddobaad ma arkan ani inta idaacadaha ka maqlay wuu baqayaa intaas yuu baqayaa waa su'aal marka principle dhan ka qaldan oo dawladnimada ma aha madaxweynaha noqoto ma dawladnimadu waxay ku dhisan tahay rukray ku dhisan tahay laakiin haddii dawladnimada ay kooban tahay diyaaradan raacay baydhoow maanta waxaan ka degay xamaraan jooga waa ka baxay Nairobi tag waa ka baxay halkaan tag waa ka baxay waa soo noqday cidii aan ilaahay mafaayidin reerka mafaayidin soo dhigata ma buu la socod bidada marka problemka jir waxa waaye Shariifka waxaad moodaa u fiirsan madaxweyne ku xigeen ayaa jirta dastuurku sheegay si la sheego hore dhan ogeyn ilaa madaxweyne ku xigeen ma aragteen ma arag wasiir dawlad dastuurku uu ku qoran xagee laakiin cidii cilnayd aa marka waa baarlamaanka yaa corrupted naftirkiisa power sharing ra'yi la qaybsado fadi meel la wada dhika fadi kulli ee lagu xadgudubi sheekana qowata ma waa in wal lagu bedelaa anti isan bedelan waxaa sidoo kale la sheegay in gobolada iyo degmooyinka maamulkaasi ay kala go'an yihiin oo aanay jirin isi socod dhanka dhulka ah Koonfur Galbeed waxay ku feelgarowday inaysan maanta gobolada sida hore loo sheegay mar raba inaan gadaal u noqdo inaysan isu gudbi karin communicationaha uu kala go'an yahay min afgooy ilaa mataqaanaa leego ay joogaan ciidamo oo mataqaanaa dawladda dhexe inay ka socdaan iyo meel ay ka socdaan aan la garanaynin baabuurka ka soo baxo baydhabo oo soo aada xamar lama rabo dhinacaas iska dhaaf dhinacaan xamar markuu soo aado intaasoo isbaaru maraya intaasoo lacag laga qaadaya shacabku waa ku dhiban yihiin waxa keenay waxay ka qaadi waayeen shacabkooda kaliya inay mataqaanaa gadaal u celiyaan hobba safaylata oo hay fiirsado eed hay isku fiirsado shina ma hoon hayna ma odayaalku way lahaa wal gorodka arantun sahay ku bedelo sidiisin ogdin abaar roobka dhiida Soomaaliya wal sheegay badan waan dhulkan ka barwaaqa badan Koonfur Galbeed way laakiin markasta ho abaar dhiida dadkan ka dhamada ku meela ka sugunin marka anoo ku bilaawo xildhibaanada Koonfur Galbeed wasiiradiyo maal madaxweyne iyo ka jar iyo shacabka mayle raayso antiyo mayle raay arintun wal ku bedelan ho walan ku bedelna shacabka anti ka haano mayle raay ummadan runta in sheegan isku bedelan wayba eedanka tumaday garaadka aqoonyahanada Koonfur Galbeed garaadka odayaashii dhaqanka soo jireenka ee lahaayeen iyo malaaqidii Koonfur Galbeed marka haddii isin isdhiibasaan iyo haddii isin isku qowdaasan Koonfur Galbeed ahaan Shariif Xasan Sheekh Aadan wal isin siintaal waay langantis beertis us argo ku tabi yaway jaray roogay beertis kaaman dhow ka xareysan oo beertis inta abado korno bakaartis walanan ka jarna walaa shan isloogna way ku dhaltay Shariif Xasan it's time Shariif Xasan waqtigiisa isku baahlaa gobolka there's no way حقوق السكوال الذي ينسى مالك الروجة من جارة كورتا for me isin wala qarideen laakiin aan توي بالها Shariif Xasan